mudaharaadyaddan oo ka dhashay dhimashada gabar yar ayaa ka duwan wax kasta oo lagu arkay Iiraan. Mahsa Amini ayaa dhimatay kadib markii ay xireen booliiska akhlaaqda ee Iiraan oo lagu eedeeyay in ay jebisay sharciga adag ee xijaabka. Mudaharaadayaasha ayaa waxa ay muddo dalbanayeen arrimo kala duwan. Haddaba waa maxay waxa ay codsanayaan? waxay ku saabsan tahay xuquuqda aadanaha. waxay waddooyinka kaga dhawaaqayaan waa xorriyadda, xuquuqda haweenka iyo afgembiga dowladda. markii hore waxa ay dalbadeen in booliiska lagula xisaabtamo dhimashada Mahsa iyo baabi'inta sharciga xijaabka. tani waxa ay si degdeg ah isu beddeshay wax aanan horey loo arag. waxa ay ku heesayaan dumar, nolol iyo xorriyad, iyo in ragga iyo dumarka la simo. markii ay dhacday dhimashada Mahsa, xuquuqda haweenka waxay soo gashay safka hore. laakiin xuquuqda haweenka ee Iiraan waxay la micno tahay inuu qof walba helay xorriyad. markii ay mudaharaadayaashu si degdeg ah isu soo aruuriyeen, dalabyadooda ayaa sii ballaartay. waxay ku dhawaaqayaan ha dhinto keligii taliyaha ardayda iskoolka. waxay u soo baxeen waddooyinka, waxayna ku dhawaaqayaan ha dhinto keligii taliyaha, waxayna codsanayaan in xukuumadda la rido. dadka gaar ahaan jiilka da'yarta waa ay niyad jabeen. shaqo la'aanta ayaa aad u badatay. waxay rabaan in la soo afjaro musuqmaasuqa joogtada ah iyo caburinta siyaasadeed. waxa ay doonayaan isbeddel. waxaan joognaa heerkii ay dadka u malaynayeen inaan ku jirno xaalad xun. carruurtoodana waxay haystaan nololtan ugu fiican. ma doonayo inaan sidan u noolaano. waxaan u malaynayaa in tani ay awood u leedahay in ay wax walba beddesho. mudaharaadyada ayaa waxa ay mideeyeen dad ka kala socda bulshada Iiraan oo dhan. inkasta oo ay mas'uuliyiintu dadaal ugu jiraan sidii ay xaaladda wax uga qaban lahaayeen, dhalinyarada hawsha ku jirta ee Iiraan uma eka in ay quusan doonaan waqti dhow.